wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay magacaabday guddi ka kooban 5 xubnood kaasi oo ka shaqeyn doona arrimo la xiriira horumarinta awqaafta iyo arrimaha zakawaadka guud ahaan dalka Soomaaliya. mudane Cismaan Aadan Dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya oo xafiiska wasaaradda kula hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay guddigan ay magacaabday wasaaraddu iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. markaan arkay muhiimadda ay dalka u leedahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha zakada iyo awqaafta islaamka, markaan arkay in ay tahay hay'ad ka jirta dhammaan dalalka islaamka, markaan arkay in ay tahay tiir ka mid ah tiirarka islaamka, markaan arkay baahida loo qabo aqoon-yahan takhasus sare u leh arrimaha islaamka. qodob koowaad waxaan u magacaabnay ka wasaarad ahaan number 1 Dr. Bashir Warsame Maxamed Bashir Caadil, Dr. Maxamed Cali Ibrahim, Dr. Xasan Khaliif Xasan, Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan, Sheekh Xuseen Cabdirashiid Macalin, iyada oo guddiga guddoomiyaha u noqon doona guddiga ku magacaabnay Dr. Bashir, gudoomiye ku-xigeenna Dr. Maxamed Cali Ibrahim. shaqada guddiga number 1 soo diyaarinta qaab dhismeedka hay'adda sakawaadka iyo awqaafta islaamka Soomaaliyeed, soo diyaarinta xerosaadka hay'adda sakawaadka iyo awqaafta islaamka, soo diyaarinta golayaasha hay'adda sakawaadka iyo awqaafta islaamka, soo diyaarinta qaabka wada shaqeynta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo jamciyadaha khayriga ee ka howlgala dalka. 6 dabagalka iyo raadinta dhulalka waqafka ay lahayn jirtay wasaaradda.